السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan bilaabi doonaa casharkeeni saddexaad ee ku saabsanaa Microsoft Excel. Casharadeenii hore waxaan ku soo baranay waxyaalaha aas-aaska u ah markii la bilaabayo ama uu qofku uu baranayo computerka gaar ahaan Microsoft Excel-ka. Casharadeenii hore waxaa raaci doona insha Allah tacaala casharkan saddexaad oo isagana ka mid ah weli aas-aaskii iyo meelaha ugu horeeya laga barto Microsoft Excel markuu bilow yahay qofku meelaha oo muhiimka tahay inuu wax ka yaqaano. Caawa marka hore saa liiskin ugu jeedaan waxaan qoraynaa liis markaan diyaarino xog shirkad oo kale. Halkan waxaa u jeedaa oo liiska shaqaalaha, halkan waa qaybta uu ka shaqeynayo mushaarka uu qaato. Marka liiska shaqaalaha iyo macna ciwaanada mawduuca iyo waxaana isku dhafan ama aan la kala saari karin magacyadii shakhsiyaadka. Tusaale ahaan oo kale liiska shaqaalaha waxaa ka mid ah Axmed, Cali, Naciimo, Ayaan. Laakiin markii la fiiriyo waxa la leeyahay liiska shaqaalaha macnaha kama duwana magacyadan Axmed iyo Cali sababtoo ah wax kala rama saarna inuu uga duwan yahay, inuu ciwaan yahay iyo inuu ka mid yahay dadkaas uu ka mid yahay lama kala garanayo. sidoo kale qaybta macnaha way qaybta uu ka shaqeeyo qof walba. Axmed suuqgeynta ka shaqeeya, Cali iibinta, Naciimo iibinta, Ayaana wax soo saarka ka shaqeysa production iyo waxaas. Dad suuqgeynta iyo marketing iyo kuwana waa selling wax iska iibinta iyo waxaas ay ka shaqeeyaan. Mushaarka ay qaataanna waa kuwaas. Marka waxaa jira dhibaatooyin ardayda ka soo wajaha marka ay liisaskan sameynayaan. Tusaale ahaan oo kale liiska shaqaalaha kale ciwaan uu ka dheer yahay. Markii loo eego kuwan markii loo eego baaxadiisa, baaxadan iyo baaxad aad u kala weyn soo aad buu baaxad weyn tahay markii loo eego C iyo B iyo B markii loo eego baaxadooda baaxadan iyo baaxadan yaa weyn aad weyn. sababta keenta maxaa weeye maadaama halkan uu ku jiro liiska shaqaalaha oo ka dheer xaraf ahaan ka badan area ahaan ka badan Axmed oo kale. Axmed wax yar weeye. Marka marka qaarkood saasi ka noqonaysaa marka qodid oo kale shaqaalihii ma uu qarsooma. هذا شغال ليس كشغال هذا كقرا هل كان سي ونوت المام يوكله ليس كشغال هذا كقرا لكن وحرجنا إن هالقاعدة واحد كدم بيه إن يسموقنا ما أشيدنا مركا رت إن سوم مجسد وأما ليس كشغالها وأدنى سوم مجسد وحاسمين كرتا لبها باسمين كرتا هبت كوبادو حوي إن ماشان فلارتا ماشى دحى هل كان وأي بيدان ماشى أول حيسة وعلامة وكم موجين هذا أشيديد وكم موجين أيه balaba jeer ku dhufan laba tig basaaraysa marka uu leekanaya shaqaali baa soo baxaya. Shaqaalaha marka halka tig saadid oo laba jeer aad ku dhufatid uu soo baxaya. Soo ahaan hadaan ku celino faakan shaqaalada waxa muuqda aadaas iyo qaada iyo adii shaqa muuqda intii kale qaalaha oo dhan baa maqan. Marka aan ku celino isasubtanka isticmaalay waxaan tegaynaa manali meeshan مثلا marka falaarta saan noqoto ba laba jeer ba kala gareena muuska qaybta midig ba laba jeer ku dhufana red click qaybtaas waka caadi ayuu ku soo baxaya liiska shaqaalaha magaca ku soo baxaya. Systemka labaad aad ku sameyn karto waxa kamid ah adoo waxaad dooranaysaa liiska shaqaalaha falaarta noo saaranta Soomaaliya noo saarantahay waxaad tagaysaa meesha format ba tagaysaa hadhow wax ku dhufanaysaa meeshan auto fit column width ba dhahaysaa wuu leekanaya. Intaas tan ba aad uga fudud marka isticmaalayso kuwan kale la mid weeye. marka hore aan qurxino liiska casharadii hore oo ku soo qaadan laakiin casharkan aad buu uga fiican yahay casharadii hore. marka qurxino liiskan waxaan dooranaa liiska shaqaalaha markaan doorano boldigaas taabanna wax dhan wada boldi ba noqonayaan oo isbedelayaan. hadda waxa markii soo loo eego waxa dhaysa liiska shaqaalaha qaybta mushaarka ciwaanadii waa dhihi kartaa maadaama xogaa ay kala rahan ay ka duwan yihiin madow saaid noqdeen. marka hadaad u baahan tahay hadda qaybtan oo kale waa dooran kartaa. inta marka doorato waxaad kalarka waa bedeli kartaa. kalarka doonta ka dhigan kartaa noocaas ka dhigan kartaa daaratid ayu kalar aad doonaysid ba ka dhigan kartaa. hadda anaga guud ba ka dhiganay haddaan rabin guudkiina tagti hore inaad ku soo celisina meesha kore tagaysaa andu ba dhahaysaa tagti hore ku soo noqonaya. عشان هذا أنت شرحه وحكم ده أنتي هراء سكر واحد شراء مركز ليسك شغالها أما عوانك أتكسر عيسد
waxyaalaha waxa jira la sameeyaa jira soonaano kale waan doortay waxaan rabaa inaan hoos ka xariiqo cinwaanka waxaan tagayaa meeshaan ba tagayaa borderskaas oo kale waxaan ka dooranayaa kuwan hadda top borderski left borders right ki wixii dhan u jeednaa inta badadku waxay jecel yihiin ani tan thick bottom borderskaas jecelaha hoos buu ka xariiqayaa xariiqitaan madow buu saaran u jeedaa liiskii uu ka xariiqa waa ka yara soocan yahay kuwa kale saad u jeedaan oo kale marka waxyaalaha lagu sooco kamid yahay sidoo waxa jira marka liiskan oo kale liiska shaqaalaha oo kale halkan ba imaanaysaa halkan muxuu ku tilmaamaysaa waa inaad u align gareysaa leftiga centerkii midigta macnaha ciwaankan inuu dhanka midig bidix aado dhanka dhexda soo istaago inuu midig aado ayaa sameyn karta soo hadda liiska shaqaalaha dhanka bidix baan ka dhigayaa waxaan taabanayaa qaybtan baa taabanayaa qaybta leftiga ku dhufanaya hadda qaybta leftiga wuxuu aaday dhinaca leftigu aadaya ciwaanka aadaya soo qaybta ku fiican qaybta ciwaan yar iska ah qaybta haddaan hadda dhinaca bidix mu joogaa soo maahan dhexdan kale centerka ina halkan keenaa rabaa centerka ku dhufanaya centerku imaanaya silsigii hadda waxaan sameyn karaa right kan baa keeni karaa dhinaca right ku imaanaya bidixdii baan keeni karaa bidixdii u aadaya marka u baahan tahay ciwaanka hadduu dhinaca doonti inaad dhigato saasa sameynaysaa waxyaalaha wuxuu ka mid yahay asaaska u ah markaad baranaysid Microsoft Excel-ka sidoo kale waxaa jira borderskan waa barateen in halka markii aragti inaad xaan ka xariiqdo oo kale wax walba waa sameyn hoos baa ka xariiqaysaa ciwaankii colorka bedeli kartaa soo kale liiska shaqaalaha oo kale colorkooda dhan baa bedeli karaa qaybtan san casharkana hore u sheegnay channel ka dhigi karaa darabo guud baa ka dhigi karaa noocyada ba kan doonta nooca doonta ka dhigi kartaa marka aduu qaabka doontid u sameeysan kartaa marka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha muhiimka ah marka aad baranayso Microsoft Excel marka waxa ogaataa in uu shuruud leeyahay Microsoft Excel ku sanahan oo kale hadda ciwaankan oo hadda tirtiro ciwaanka hadda qaybta kale macnaheedu waxa jira shuruud waxa weeye in qaybta columns-ka ah هذا سida liiska shaqaalaha dhinacan oo kale columns waa dhinacan oo kale hadda soo kale dhinacan oo kale dhinacan iyo dhinacan columns-kan oo kale kuwan oo kale waa inay mar walba ciwaan leeyihiin sanaha oo kale liiska shaqaalaha oo kale hadaan dhaho liiska shaqaalaha meesha ka tiraya hadaan dhaho maxaa isoo baxay meeshan Axmed baa ku qoran Cali Naciim ayaan oo maxay waxaan ma garanayo qof garanaya ma jiro maadaama meeshan haduu bila ciwaan yahay xogta diyaarisay wax noqonayaan wax abaa mansuuran bay noqonayaan marka waxa loo baahan yahay dhinacan columns-ka ah inuu ciwaan leeyahay must waa in ciwaan leeyahay wuxuu kamid tahay shuruudaha Microsoft Excel hada dadka magacyada maxay noo faa'iideynayaan waxna ma faa'iideynayaan yihiin ma ardayba ma macallimiinba ma cid kala wixii yihiin garamayno marka laakiin markaan qorno liiska shaqaalaha ku qornaa waxaan garan karnaa inay dadkan afartan hoos ku qoran inay shaqaale yihiin oo ay shirkada ay ka shaqeeyaan ba ogaan karnaa laakiin haddii aan sax ku dhaafno de wixii garamayno marka sidaas oo socda marka waxyaalaha u muhiimsan ayaa maanta baranay sidoo kale waxyaalaha kamid ah waxa kamid ah marka dhilgelinayso sidoo kale inaad macnaha inaad iska dhilgelisaa rabtaa waxa tagaysaa oo kale Naciim oo kale tagaysaa Naciim inaad adaarti inaad tuurto oo meesha ka saarto halkan baa tagaysaa clear ay ku qoran tahay clear all baa dhahaysa xogta dhan baa sax ku baxaysa xogta gudaha ku jirto dhan way baabada hadda Naciimay uma jeedno hadaa rabto inaad dib u soo celisidna san hore u sheegnay undo baa dhahaysa dib ku soo noqonaya marka waxyaalaha waxa kamid yihiin waxyaalaha aan hadda aan sii horumarin doono casharada waxa fiican in arday walba maalin walba qayb kamid ah in la baro ayaa aad u fiican marka caawa insha intaas ayaan qaadanaa Ilaahay idinkiis